Love you, my baby. I love you, my baby. Love you, my baby. waxaan ku soo koray magaalo la yiraahdo Pennsylvania. Pennsylvania waa magaalo aad u qurxan, kaliya dhibaatada ay leedahay ayaa waxa waa meel duur ah. yacni waa meel deegaankeedu aad u yar yahay, kaymaheeduna ay badan yihiin. run ahaantii magaaladaas markaan degnaay waxaan igu dhacday arrin cajiib ah oo aad u baqdin badan. arrinkaasina wuxuu igu dhacay markaan degnaa Pennsylvania 1996 anigoo jira da'da 6 ama 6 sano sidaad u garanaysaba. waxaa jiray wiil aan saaxiib ahayn, magaciisa la dhihi jiray Steve, kaasoo igu da ahaa ama asigana 6 sano jiray. labadeen waxaa ahayn laba isku da ah, kuwaasoo saaxiibo ah. markastana waxaan isku soo raaci jirnay kaynta si aan iskaga soo wareegno. maalin maalmaha ka mid ah waxaan soo aadnay meel aanan garanaynin, waxaana go'aansanay inaan meeshaas aan soo fiirino dadka waxay ugu baqaan. run ahaantii meeshaas waa dadka aad ay ugu baqi jireen, sababtoo ah meeshaas waxay ahayd meel dadka dhan ay ka baqaan oo layska xiray. laakiin aniga iyo saaxiibkay Steve waxaan go'aansanay in aan meeshaas soo fiirino. meeshana meel cunug yar ka bixi kara ayuu ahaa, geedo keliya ayaa saarsaarnaayeen. sidaa darteed marka geedii ayaan kasoo dhexdhex baxnay waana soo galnay. waxaan aragnay teendho yar meel ku dhisan, anagana qabow daran ayaan qabtay. cimilada si degdeg ayay isku bedeleen, waxay noqotay cimilo aad u qabow. isla markii waxaan go'aansanay markay dhaxanta na qabatay in aan galno teendhadaani. saaxiibkii Steve ayaa waxaa ku yidhi aniga ayaanoo bilaabayo, aniga ayaana galayo, kadib iga soo dabagal. laakiin teendhada gudaheeda markaan isha saaray aad ayaan u baqay. cirkii dhan baaba ila madowaaday, anigoo dhan waxaa noqday qof isbedelay. aad ayaan u naxay, dabeelna way kacday. run ahaantii ma garanayo waxaas waxay ahaayeen, laakiin waxaan arkay gacan meesha laga soo taagayo. gacantaasna waxay ahayd sida gacan bini'aadan oo cinjo leh, maqaarka xayawaanka leh sida libaaxyo kale. gacan bini'aadan oo maqaarkeeda adag yahay ayuu ahaa, cinjo dhaadheerna leh. far ayayna meel noogu fiiqday. aniga aad ayaan u baqay, waana ka soo cararay. sidoo kale saaxiibkay Steve boorsadii ayaaba ka dhacday, asigana aad ayuu u soo cararay. meeshiina waan ka soo cararnay, waxaan imaanay gurigeena. waan xasuustaa markaan orodka kusoo jiray gadaal ayaan fiiriyey, waxaan arkay hoos aad u madow kaasoo geesa leh sida bini'aadan wax loo xirayo kale. indhihiisuna waxay ahaayeen kuwa ifaayo. waan ka soo orodnay, waxaanu u sheegnay Steve hooyadii. waxaan soo aragnay ayaan hooyadiis u sheegnay, laakiin hooyadiis ma ahayn midna aaminto. waxayna fadhiisay kursi, waxayna noo keentay cunto. sidaa darteed Steve iyo hooyadiis magaaladii way ka guureen. saaxiibkay Stevena wuxuu noqday nin drugs isticmaala oo xun, kaasoo waxyaabaha mukhaadaraadka isticmaalo. muddo dheer kadib waxaa leesoo sheegay saaxiibkay Steve inuu dhintay. run ahaantii markaan arrinkaa maqlay aad ayaan ugu naxay, sababtoo ah saaxiibkay aniga aad ayaan u jeclaa. ciddiisana waan u tagay, waan u soo tacsiyeeyey. hooyadiis iyo aabihiis aragtideeda aad ayay ugu farxeen. waxaana go'aansaday inaa hooyadiis iyo aabihiis aniga aan la noolaado, sida wiilkoodii oo kalena aan noqdo. habeen kasta waxaan ku riyoodaa aniga iyo saaxiibkay Steve oo qol iskula jirno, mar kastana saaxiibkay Steve la dilayo. run ahaantii ma garanayo riyadan sida aan niyadeyda ugu goy lahaa.